Netanyahu kan noqday wixii uu malmaluuqay Netanyahu uu kan noqday wixii uu malmaluuqday inay ilduuf tahayna isagaa sheegay inuu joojiyeyna isagaa sheegay wuxuu u sababoyeyna isagaa sheegay هيك داود سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan rabaa barnaamijkan inaan xog waran kooban oon horeyna u sii saadaalinay kaga warano dadku waxay isbarbar dhigayaan oo la leeyahay madiinba diin ma aha i'tiraafka Somaliland iyo Yuhuuddu madiinba diin ma aha waxyaabahaas la leeyahay aad ugu mashquuli mayno waa diin waa sax waa diin intaas aan kaga soo koobto ama aan kaga soo laabto midda labaad ee guusha ah ee aan rabaa in hadda barnaamijkan soo fadhiisto horeyna idinku soo sheegay wuxuu yahay Netanyahu oo warbaahinta waraysi siinayay xalay ayaa wuxuu sheegay in uu ku degdegay i'tiraafka uu ku dhawaaqay ee taleefanka uu ahaa in baarlamaanada la marinin aan dokumentiyo loo kala saxiixanin aan shirar loo kala gelin aan caalamka la ogeysiinin kala kiciska fiidiyowga ahaa inuu ku degdegay dhowr sababoodba waa sababta koobaad ee ilduufka ku dhacay inuu yahay in dhulka qariirada Somaliland Britishku dhulkii uu gumaysan jiray Somaliland la dhihi jiray aynan bahaysanin boqolkiiba 70 gacanta ku haynin 300 oo kiiloomitir ka badanna in meel ka sokaysa ay fadhiyaan xadkii 300 oo kiiloomitir ka sokay ay fadhiyaan xadkii nimanka Somaliland ay la heshiiyay oo dhulkiiba aynan fadhinin waxbana ka maamulin khiyaamada horta way ugu dhufteen buu yiri ilduuf buuna ahaa aanon meesha xogogaal ahayn aan galay waa ilduufka koobaad ilduufka labaad ee aan galayna waxay ahayd buu caalamka saaxiibo waaweyn oo aan ku lahaa yaan ku waayay buu iga hor yimid saaxiibada waaweyn ee uu ku lahaana dabcan waxa kamida wadamada caalamka ee ka wada codeeyay oo dhan ilaa caalamka oo dhan baa ku codeeyay Soomaa caalamka saaxiibo waaweyn oo aan ku lahaa yaa iga codeeyay buu Ingiriisku waxaad ogeydeen buu sameeyay waana isaga saaxiibkii oo ay isku xulufo yihiin waana ninkii meeshan gumaysanayay waana ninka xogaalka u ah waana in on haday i'tiraafi oo cid aqoonsanayso ninkii ugu macquulsana inuu aqoonsado ee looga qaateenka iyo garta noqon lahaa buu ahaa ninka ugu dooda adkaabuna ahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay habeenkii shirkoodii ninka ugu dooda adag yu Ingiriisku ahaa waxa la filayaa marka ninkan uu Netanyahu leeyahay saaxiibo waaweyn baan ku waayay inuu yahay ninkaas i'tiraafkii riyada ahaa ee taleefanka ahaa ee afka baarkiisa ahaa ee nafiska siyaasadeed ahaa ee cirrana uu hadal haynta iyo nafiska ku rabay Yuhuuduna ay islahayd bal dhiigan aad taagantihiin iyo raqdan aad joogtaan ka sii jeediya indhaha caalamka oo islaha wuxuu noqday daandabangaaluhu waa wax markii qorraxdu kulushahay ee aad meel baadiya ku lugeynayso ishaadu intay aragtaana ay banaan tahay wax aan la qaban karin oon midab iyo muuq lahayn oo biriq dhaha waad aragtaa laakiin wuxuu yahay ma sheegi kartid daandabangaalle dadkan aqoon waxaas baa la dhahaa waa wax cadceeda kuleylkeeda iyo hawada la ciyaara oo muuqda magac aan lahayn aan la qaban karin aan la gaari karin laakiin mudutul muuqata ma sa qaban kartid qiiqo haduu meel ka baxo lama qaban karo waa qiiq laakiin bildaantiisa arki kartaa i'tiraafkii aynu bildaantiisa aragnay aynu maqalay aan la qaban kareynin aan saxiix lahayn aan taabasho lahayn aan muuqaal lahayn aan farkufiiq lahayn aan meel oo lahayn aan saxiix lahayn aan dokumenti la kala qortay lahayn aan waxba lahayn riyadaas gabagabowda buu noqday halkaas ku soo istaagay Netanyahu baana sheegay wuxuu yiri waan ku fududaaday waan ku degdegay waan ku hodmay inuu ka noqdaana waa qasab balada macaan ku yiri inuu ka noqdaana waa mid qasab ah halkaas uu i'tiraafku ku dambeeyay Yuhuuddu waxay leedahay horbaxanyo waxa la dhahaa waa xawayaanka hadii aan kugu tilmaamo
shimbir baa jirta malabka jaajuustoo sheegta buli baa la dhahaa dawac baa jira libaaxa jaajuusoo sheega dawacaasi wuu ciyaa oo uu dhahaa haddii aad dawaca aragto libaaxina waa daba socdaa haddii aad buli dirdir la maqasho laba midun bay kuu geyn inay hub kuu geyso inay gaala kuu geyso inay yuhuud kuu geyso inay axmaara kuu geyso iyo inay malab kuu geyso wax uun khatar ay kuu geyn mararka qaar waxaa laga yaabaa inayba mas weyn ku dul istaajiso waa bulida farsamooyinkeeda bulida caalamul islaam khatarta ku ah ee yuhuudda inay soo gashay meeshaas laga bartilmaameensado waa imaaraadka imaaraad meel uu shaqo ku leeyahay oo haya haddaad aragto israa'iil waa joogtaa imaaraadkii sida shaydaan la naaray buu Soomaaliya ka baxay xamaantiisii buu urursanayaa diyaaradihiisii tira ka 5 diyaaradood dawladda federaalka waxay u jartay waaran inay dib ugu soo noqon doonaan dalka diyaaradaha waxa kamid ah kuwii Suudaan hubka lagu laayo boosaaso ka dejinay Suudaan hubka lagu duqeeyo kuwii boosaaso ka dejinay waa kamid ah amarkii way jabiyeen way soo dageen way galaa baxeen way duuleen way bixeen laakiin dadka qaar waxay sheegayaan in ay guranayaan xamaanti ka taalay oo waxaan uun ahayn amar ay jabiyeen meesha dhalay dhigteen yuhuudda wuxuu soo dirsatay saldhigyo waaweyn baa berbera iyo laga dhisayay boosaaso labadaba dhulkay ku raaxaysan lahaayeen iyo dhulkay degi lahaayeen iyo kaniisadahoodii iyo baararkoodii iyo meeshii khamrida lagu kaydin lahaa yaa waxa laga dhisayay boosaaso iyo meesha berbera la yiraahdo isku nin baana xukumay hal yuhuuda musaada yaa labadaba wada xukuma labadaba kaas ay isu taltalaabayay Soomaaliland iyo Puntland islaama hadlayaan afka isu taagayaan laakiin hal wiil askari oo yuhuud oo imaaraati ah yaa taan casarkii ka qadayn tan habeenkii ku soo noqonayo labadoodaba isku hal saldhig ka dhisanaya wixii bay kala urursanayaan Soomaaliya waxaan moodaa jidkii Yaman inay cagta saartay jidkii midnimada inay cagta saartay mar hadii Sacuudiga ay ku fayshay ku tawasushay oo Sacuudiga dabada saartay imaaraadna uu ka baxo waxaad moodaa in jidkii qomanaaya toosna ay sidaas cagta ku saartay waxaanu leenahay hambalyo ku socda hal jiho bal Soomaaliya hal laga helo intaasan Soomaalida kaga soo koobaya ujeedka hadalkaygani wuxuu ahaa inaan idinku bishaareeyo intaas ama jecel walaalaha gargaara muslimiinta Falastiiniyiinta Gaza iyo dhibaatada haysata iyo ducfiga ummadda muslimiinta kala qaybinteeda iyo waxa soo socda dadka ka diirayo ku guuleysta ku bishaareysta ku seexda ku soo toosa Netanyahu ka noqday wixii uu malmaluuqay Netanyahu uu ka noqday wixii uu malmaluuqday inay ilduuf tahayna isaga sheegay inuu joojiyayna isaga sheegay wuxuu u sababoyayna isaga sheegay. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.